السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad. maanta waa talaado, taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 4 bisha Agoosto sanadka 2026. barnaamijka waa barnaamijkeenii labaad. waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba warbixinada soo kordhay waxaa ka mid ah xuutiyiinta oo sheegay inay daakum ka dhigeen mid ka mid a eraboorada muhiimka ah ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. haddaba maxaa dhacay? sideese weerarkaasu u dhacay? wararkii u dambeeyay ayaan idinkaga hayaa. waxaa sidoo kale aan idiin soo gudbin doonaa warbixino cusub oo kasoo kordhay marinbiyoodka Hormuz. wasiirra muhiima oo ka tirsan maamulka Trump oo ku baaqaya oo sheegaya in wakhtiga ugu dhaqsaha badan la furi doono marinbiyoodka Hormuz, iyo warbixino ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta oo la sheegayo warkaasu madaxda Mareykanku ay sheegayaan inaanu waxba ka jirin ee markaa Hormuz khilaaf weyn uu ka taagan yahay sidii Iiraan ay u furi lahayd. haddaba wararkaas ayaynu barnaamijkeena labaad maantoo talaadaha ku soo qaadanaynaa. inta aan ku jirnana wixii warara ee soo kordha waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta oo aad nagala socotaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad. maanta waa talaado, taariikhduna waxay ku beegan tahay 4 bisha Agoosto sanadka 2026. haddaba barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn. haddaba waxaa noo soo socda warar muhiima oo ku saabsan xuutiga oo daakum ka dhigay Sacuudi Arabiya. laakiin markan waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu waaweynaa ee xaaladda marinbiyoodka Hormuz. sida aad la socotaan, marinbiyoodka Hormuz saakay ilaa maantay dhown waxaa ka taagan xiisad kadib markii saakay la sheegay markab inay Iiraan ku qararamsatay marinbiyoodka Hormuz. haddaba maxaa ka soo kordhay marka intaynu kala maqnayn sheekada Hormuz? haddaba aan marka hore ku bilaabo telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio inuu markaa rajo weyn ka qabo in heshiis laga gaari doono marinbiyoodka Hormuz. Mark Rubio wuxuu sheegay in heshiis laga gaari doono weliba sida ugu dhaqsiyaha badan oo ugu degdegsan arrinta marinbiyoodka Hormuz. horumar ayaa laga gaaray wadahadallo na dhex maray annaga iyo Iiraan si loo soo celiyo inuu shaqeeyo oo la furo marinbiyoodka Hormuz, ayuu yidhi. ninkan wuxuu leeyahay sida ugu dhaqsaha badanaa loo furi doonaa. isagu waqti ma sheegin, ogaada. waa wasiiru khaarijiyaha Mareykanka, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka waayo. wuxuu leeyahay wadahadalladii noo socday annaga iyo Mareykanka meel fiican noo maraya, natiija la gaaray. Iiraan waxay leedahay wax wada hadal oo nimankan aan kula jirna male. war bilaa calaykum, Iiraan kale ma jirtay taagiin. waa la wareeray meeshaan. marka nin khabiira maanta warkiisaan aniga aan aad maaragtay ugu bogay. waxaa wareysanayay telefishinka Al Jazeera almuhandis, waxaa la yidhahdaa almuhandis Maahir Cabdilxamiid aa la yidhahdaa. waa nin injineera oo Masar u dhashay oo la wareysanayay, oo khabiira oo dhankan arrimaha siyaasadda caalamka laga wareysanayay. waxaa la yidhaha adduunyadu waxay ku wareertay. Mareykanka wuxuu leeyahay waxaa noo socda wadahadal. kow, Iiraan waxay leedahay war wax wadahadala ma jiraan, ma laba Iiraanaa jirtay taaganta. sidee wuxuu jiraan? wuxuu yidhi labaa ku fasiri karnaa. in wadahadalka uusan toos ahayn oo meel dadban uu ku jiro oo qolo kale ay la wado Iiraan, waa dhici kartaa oo Mareykanku kaas xisaabsanayo. waxaa kaloo dhici karta inaanay waxba ka jirin wadahadalka, oo Trump iyo kooxdiisu sababta ay wadahadalaa socdaa u leeyihiin inay rabaan qiimaha shidaalka iyo badeecadaha adduunka inay halkooda ku hayaan. haddii la yidhaha wax wadahadaloo socda male, xaalku waa baraka mala, way ku sii darayaan, waa la sii qaaliyeynayaa. marka inuu Trump mar walba been sheego wuxuu qaldayaa lagu leeyahay ra'yul caamka. ninkan hadduu dagaal ku baaqo shidaalku wuu kacayaa.
nabadaas socota dii la shidaalku xoogaa uu degayaa marka nimankaasay nimankan la xariiftamayaan aan lagu leeyahay adduunka wax kasta waa arkaynaa waa baranaynaa waayahay marka ninkii hadda aan soo qaadanay wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mareykanka wasiirul kharasana nin la yiraahdo jira marka wasiirka arrimaha maaliyadda oo kale u qaabilsan Mareykanka asaguna wuxuu leeyahay maalin uu tilmaamaa wuxuu leeyahay arbacada waa furayaan kii hore sida ugu dhaqsaa badan Soomaaliya kana isna ka daba hadlo wuxuu maalinta arbacada marimbiyoodku waa la furaa sheekada waa dhamaatay waa kaas shidaalkii marka lala dagaalamaya inuu soo dhacaan rabaa moor shidaalku si qaaliyoobo Mareykankii waa kacayaan shidaalkii ku qaaliyoobay adduunyada dhan qaaliyoobay suuqii oo dhan waa la dagaalamaya marka mala awaal iyo riwaayada la isu sheegaya marka adduunka oo dhan la khaldaya ila arka faano waay haddaba marka aad tuso wargeyska la raayo loo muxuleeyay wasiirka al-khazana ninka la yiraahdo macnaha wasiirada oo kale Mareykanka ninka u fadhiya ayaa wuxuu rajaynayaa heshiis ay la gaarayaan Iran maalinta arbacada oo dib loo furi doono marinbiyoodka Hormuz haddaba arrinkanna wuxuu qayb ka noqon doonaa inuu deganaanshiyo ku sameeyo sicirka batroolka iyo daaqada caalamka ascaaru daaqa la yiraahdo mujida sheekadii hadda soo baxay sheekadii waxa leeyahay arrintan waxay caawini doontaa sicirka inuu soo dago ilaa waxa been u daldalay ninkii Trump iyo kooxdiisa waxa lagu leeyahay waxay la dagaalamayaan in shidaalku qaaliyo Iran la heshiina Iran waa dhamaysanay hawsha waa la furayaa barito waxa soo dhan filin waa lagu leeyahay wallahi waa baay siyaasaddu waa wax munaafaqnimo ah waay oo yaab la waay marka waxa sidoo kale warbixin kooban iyana diyaarisay telefishinka Al Jazeera ayaa war kooban ka diyaariyay waxay leeyihiin nimanka Mareykanka warkooda waa la furayaa ma la furayo waxaas waa hawl kale laakiin anagu waxaan ogaanay khilaaf weyn inuu ka jiro Hormuz af aan lagu furi karin waa la furaa bari basaadan baa la furaay shidaalkii yuusan ugu kicin waxaas wasiirka hebel ha hadlo wasiirka la hadlo Trump ha hadlo waxaas adduun laguma raacayeen waxa sheekadaas waa sheekadeen Al Jazeera waxay taagan tahay khilaaf weyn meesha ka jira wax ciyaar ku furmaayana ma haddaba khilaafku marka muxuu yahay aalada tuso wararkii ugu weynaa khilaafaad ay leedahay Jazeera ayaa hareeyay heshiis laga gaari lahaa marinbiyoodka Hormuz haddaba warbixintan waxaa laga soo xigtay journalka Mareykanka ee yiraahdo Wall Street Journal wuxuu leeyahay mas'uuliyiin gobolka iyo kuwa Mareykan ayaa xaqiijiyay in markaasi Iran ay diiday dalabka ah inay joojiso canshuur inay ka qaado maraakiibta halka maraysa haddaba waxay soo kale Iran diiday inay damaanad qaado inay joojiyaan weerarada ay awlaadeeda ku qaadayaan qaar kamida gobolka qaybo kamida haddaba waxa la sheegay in ciidanka ilaalada kacaanka Iran ay sheegeen in arinkaasu aanay waxba ka qabanayn oo macnaha ma ogolaanaynin mawjada journalka Wall Street Journal iyo warbaahintii waxay leeyihiin nimankan Trump iyo kooxdiisa iska hadlayeen meel iska dhigtaan meesha khilaaf weyn jira Iran laba arin la weydiiyo waa diideen cashuurha qaadina leeyahay ma qaadaytin cashuur hadana qaadin waa xirnaanay meesha kiis homar lagta ka saara dawladii gobolka way dacwo waxay yiraahdeen awlaadada naga cish xootigan iyo nimankan kale maaratay Iraq jooga iyo waxaan iyo nagala hadal ma la hadlaynaa adeegooda iyo shaqadooda ay wataan marka maxaa lagu furay taagin warbaahintii waxay khilaafsan tahay warka madaxda Mareykanka meeshan reality-ga ama waxa dhabta ee yaala miiska waa waxaan leeyahay nimankaas ka hadlay arbaca la furayo hadda la furayo waxaas wax ka jira maleedeen sheekaas marka Hormuz warkeedii waayo warka ugu dambeeya oo ugu muhiimsan maanta wuxuu yahay nimankii xuutiga ahaa waxay yiraahdeen mid kamida eraboorada ugu muhiimsan Sacuudiga ayaynu dakum ka dhigin waliba eraboorka waa weyn yahay meel xasaasi ah aan ku dhufanay taagi oo arrimo muhiim ka socdeen Sacuudiga imtixaanays Sacuudi macaa waxaan isugu taataabatay ka maraysaa
haddaba markaan tuso goordhow warbixintan waxaa daabacday jariirada la yidhaahdo ra'yul yowm waxay leedahay jamaacada ansaarullah ee xuutiyiinta dalka yemen waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen goob xasaasi ah oo ku taalay eraboorka la yidhaahdo najraan ee ku yaala koonfurta sacuudi arabiya waxaana lagu weeraray diyaarado droona waxaana la sheegay in siday tahay daakum looga dhigay macnaha bishaklin daqiiq siday taha loo garaacay lalama gafinba meeshii loogu talagalay ayaynu ku hubsanay dheheen haddaba afhayeenka u hadlay kooxda ansaarullah ee xuutiyiinta dalka yemen yaxya sariic ayaa wuxuu sheegay in kooxda weerarkeeda uu u suuro galay goob muhiim ah oo uu ku tilmaamay in cadowga sacuudigu ay wax ku maleegayeen eraboorka najraan ay la heleen oo ay ku qarxiyeen diyaarado droona waxaana la sheegay halkaa inay ka dhasheen isaaba ama dhaawac inuu halkaa weyn ka dhashay iyadoo aan wax faahfaahina laga soo saarin oo dowladda sacuudiguna aanay ka hadlin waaye marka waa arkaysaan nimankii xuutiga ahaa waxay taagan yihiin eraboorka najraan meel hadaf xasaasi ah oo muhiim ah ayaynu qararamsanay oo aan daakum ka dhignay leeyihin maanta sacuudigii war lagama hayo afkaa juqda qabay maqli jirin waxa faysteenaya oo twitterka maasha x ku soo qoraya waa xuutiga afhayeenkooda yaxya sariic marka warkan waxaa qaybta hoose ku qoran sababta aan u weerarnay waxawaaye diyaarado daroonisa sacuudigu leeyahay ayaa soo ataagay qaybo ka mida waqooyiga yemen gaar ahaan dhulka la yidhaahdo sacda meesha la yidhaahdo meelahaasay soo galeen sidee dhulkeena u soo geli karaan oo annaga noo soo aadi karaan war caddaaday meeshaasay xaajadu maraysaa wararkaas ayaa ugu waaweynaa asxaabay barnaamijkeeda labaad maanta oo talaadaan idiin soo gudbanaynay inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan asxaabay waxaan idinkaga tegayaa laag gareeya oo sheer gareeya barnaamijka nabadgelyo